السلام عليكم Soomaaliya meel buu joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena caafimaadka dadweynaha waxaan joognaa office-ka Isuroon oo ku yaalo South Minneapolis waxaan rabnaa inaan update yar idin siino saa ogtihiin coronavirus aa socoto shaqaalaheen iyo dadkii oo dhan waa kala maqan yihiin laakiin in yaroo annagaa joogna Leila meesha see fadhidaa saa idin tuso office-kayga waa cidlo waxaan ku joognaa un dhowr qof kusoo dhawaada tour office-keena ah coronavirus-kan waxay nagu riday community-ga dhan ay isku dhex yaacisay dhaqankeena Soomaali haddaan nahay waxaan nahay dad isku yimaado oo is aruursada oo weji ka weji inaan service-keena u sameyno saa u jeediin waxaa meeshaas ku jirta Ramlo oo ka shaqeynaysa programka refugee-ga laakiin shaqaalihii 80% way maqan yihiin office-kan waxaa iskala groupka ka shaqeeya mental health-ka there's our young man oo ka shaqeynaya youth program-ka inta kale bogsida way maran yihiin meeshaan education team-kii fariisanayay usually meeshaan waxaa jooga 14 shaqaalaha iyo volunteero meeshaan waxaa ku jira dadkii operation ka shaqeynayay legal aid saa u jeedin area-dan weli waa iska cidlo shaqaalahani anaga waxaan dareemaynaa cidlo sababtay tahay dadkaygaan u shaqeyno inaa iyaga aan saacidno laakiin anagana wayna saacidaan oo qalbi iyo qulubta waa isaga xiranahay laakiin waxba male dhibkan hadda coronavirus ay keentay waan ka baxaynaa dhib kastoo yimaadana waxyaaba cusub aan ka baranaa waxyaabaha hadda aan aadka uga shaqeynayno teamkan iyo volunteerada iyo boorka iyo dadka nafan garay waxay tahay seen u saacidnaa community-ga ba waxyaabaha hadda ugu koreeyo waa 3 waxyaabood qaybta ugu horeysa waxa weeyaan seen familiyadeena u helnaa cuntadii ay cunaayeen oo ay ka gadanayeen grocery-da daaramay hadda ku jiraan ee guryaha ku jiraan ilmihiina ay rabaan canjeero iyo cunto badan ay rabaan because qofku markuu guriga ku xiran yahay asuuna kora ilmo yar yahay wuxuu u baahan yahay cunto siyaada ah marka taa waxaan ka shaqeynaynaa food shelf-ka ta kale oo hadda aad iyadana dhibka weyn familiyada ay kasoo hadlaan ilmihii waxay joogaan gurigii oo wax ka baranayaan online-kii family badanna technology-da way ku yartahay oo waxaan ka shaqeynaynaa programyo videoyaal la sameeyo la barayo waalidiinta sida ilmaha ay ama u saacidi lahayn ama meeshay ka raadsan lahaayeen qof halbgareeyo awoodda Soomaalida ugu weyn ama nalagu jecel ama dadka kale ay nagu ilaystaan waxa weeyaan inaan nahay dad isku dhow oo isjecel oo ah social ah laakiin xanuunkan hadda yimid iyo infection-ka hadda yimid waxaan u baahanahay inaan is ilaalino cudurka si uu noo wada baabi'in marka wax anaga awood u leenahay laga yaabaa inay oo soo noqoto wax noogu dhibka badan marka ma dhihi karno sida cadaankii war kala fogaada indan waa kala fogaanaynaa arrintaas ma soconayso waa inaan dhahnaa war dhaqankeennii noogu fiicnaayo inaan community isku dhownahay seen u isticmaalnaa kaa on community-gina wax u barnaan ilaana kala fogaada sababtay kala fogaanshihii wuxuu noo keenaa inaa qofkii waayeelkaa cidlo noqdo gabadhii caruur guriga ku haysatay oo lamaana haysan inay cidlo noqoto ilmihii waalidkii ay madaxa isla galaan marka in la helo cultural specific way oo familiyadii wax loo baro tan kale oo rabna hadda meeshan saa u jeediin waxa weeyaan qolkeena aan food shelf-ka ka support garayno waxaa hadda aan ku daraynaa meeshan anaga Minneapolis office-keenu ku yaala waxaan ku daraynaa 8 kale oo area oo food shelf-ka aan cuntada u deliver garaynayno oo ku jiraan Greater Minnesota iyo Minneapolis iyo St. Paul places ah waxaan isku daynaa insha Allah bishaan week-ga hadda soo socdo inaan dabarno at least 2,000 oo qoys oo qoyskii ugu yar uu haysto 7 caruur marka numberkaas waa number siyaada ah haddana dadka aad hadda noo weydiinaya waxa waaye daabaradii oo caruurta aad u yaraaday kooskii aan la xiriirnay oo hadda waxaan sugaynaa shipment oo diaper soo imaanayso laakiin hadda number 1 iyo number 3 xogaa laakiin 5kii 6 kuu dhamaado oo shipment waxaan sugaynaa oo diaper kan hadda waan diyaarinay laakiin meelahan Greater Minnesota oo tuulooyinkan ka baxsan Minneapolis iyo St. Paul rabnaa inaan at least 7 ama 8 new locations aan la shaqeyno marka waxaan la shaqeynaynaa company-yaasha ama masaajidada xagga joogo si aynan sharcigan meelaha dhan la wada xiray ay ugu hogaansanaadaan
balse inaan figure garayno community-yaasha jooga twinsiska meelaha ka baxsan sida dadkii loogu geyn lahaa bariis iyo baasti iyo bur iyo sokor iyo daabarada iyo wixii maqan iyo wixii kaloo ay community-gu u baahan tahay. marka waxaan kusoo gabagabeynayaa Isuroon waxay leedahay 2 number oo la soo waco mid oo haddaad u baahatid food shelf haddaad u baahatid cuntada u baahatid iyo mid in case haddaad wixii aad u baahan tahay kasoo hadli kartid. aniga office-kaygu daalama aynan ka shaqaynaynin shaqaalihii oo dhan laakiin Soomaalidii office-ka waan joognaa oo office-kaygu weyn waa 4,000 oo square feet waaye qofka front fadhiyo qofka meel dhex fadhiyo corner kala joogaa wixii aan telefoon ku dhameyn karo telefoon aan ku dhameynaa laakiin waxaa ballan qaaday inaan aniga aan albaabada ma xireyno anigoo fartuun cilmiya oo ka socda baxda Isuroon waxaa idin leeyahay ilaaha idin badbaadiyo aniga iyo idinkaba wassalaamu calaykum waraxmatullaah.